بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. daawadayaasha ku xiran channelka Ismaaciil Caqiila waa walaalkiin Ismaaciil Maxamed Cali. channelkana waa Ismaaciil Caqiila. maantuse waxaan idin sidaa waxaan isleeyahay Allah ilaahay aad bay u cajab gelin doontaa bulshada Soomaaliyeed ee jecel qaybka. maxay tahay waxaasi halkan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa biidnillaahi albaari. maantu waa maalin talaado ah. taariikhdu waxay ku beegan tahay 20 bisha 7 July sanadka 2021 halka ay ku asteesan tahay ama ay ku sumadeysan tahay taariikhda hijriga 10 Dulxaj 1442. halkan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa. ka hor intaan barnaamijka guda galin fadlan subscribe saar si ay dhiirigelin inagu noqoto. haddii like-tan ha ka iloobin. haddii aad ka heshay like saar fadlan. haddaadan ka helinna unlike dheh si aan u ogaado inaad waxaas u baahan oo aad ka hesheen iyo inaadan ka helin. insha allahu tacaala halkan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa. rasuulka sallallahu alayhi wasallam ummadda wax badan ayuu bari jiray kuna tarbiyeyn jiray sida soo dhaweynta iyo maamuusida naxariista iyo uturista ammaanta iyo dhiirigelinta ka faa'iideynta dhacdooyinka qancinta aqliga ah iyo warinta qisooyinka oo ka mid ahayd kuwa ugu muhiimsan ee uu wax ku tarbiyeyn jiray. qur'aanka iyo axaadiista nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaa lagu xusay qisooyin fara badan oo ka hadlaya dhacdooyinka dunida soo maray, xiriir weynna leh nolosheena adduun iyo aakhiraba, si aynu ugu faa'iidaysano uguna cibro qaadano. haddaba maxay tahay shaqada nabiga calayhi salaatu wasalaam uu alle u hayay? hadda ayaan idiin soo gudbin doonaa biidnillaahi albaari. rasuulka sallallahu alayhi wasallam ama rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam shaqadiisa waxaa ka mid ahayd soo gudbinta fariinta alle, tarbiyeenta dadka iyo waxbaristooda. isla markaana alle wuxuu ina faray iyo in aynu ku dayano. sidaas daraaddeed ayaan u dooranay soo bandhigista qisooyinka isaga ka sugnaaday. insha allahu tacaala halkan ayaad kaga boga doontaan qisooyin badan oo rasuulka sallallahu alayhi wasallam ka sugnaaday, isla mar ahaantana idin cajabin doonaa. maxaa yeelay si aan u ogaano waxa faa'iidada inoo ah, waxa allena faray iyo wuxuu naga reebay, qisooyinka ayaan idiin soo gudbinaynaa. qisooyinka waxay ku tusayaan sida aad ugu xirnaan karto rabbigaaga. waa ku cibro qaadasho. waxyaabo badan ayay kaa reebi doonaan. waxyaabo badan oo xagga rabbigaaga kuu dhoweynayana hadda way kuu jahayn doonaan. insha allahu tacaala mid ayaan idinkugu soo qaadan doonaa qisooyinka hadduu rabbi weyne raali ka noqdo. halkan ku xirnaaw keliya, saaxiibkaaga ka dhigo, wehelkaaga ka dhigo, mar waliba nala joog. taas ayaa annagana anfacaysa. fadlan mar kale waxaan idinka codsanayaa inaad subscribe saartaan, like-ta aad ka iloobin. haddaad ka heshay weeyaan inaad like saarto. haddaadan ka helinna unlike dheh si waxyaabaha aad ka hesheen iyo waxyaabaha aadan ka helin aan u kala saarno biidnillaahi tacaala, ama aan u kala ogaano. insha allahu tacaala sidoo kale ha ka iloobin faafinta iyo inaad gaarsisaan meelo fogfog adigoo sheer dhahaya. insha allah viewiska inagu iyo like-ta adigu waxba kaama dhibayso, inaguna faa'iido weyn ayay inoo leedahay biidnillaahi albaari. guud ahaan intaas ayaan maanta kusoo gabagabeynayaa dhambaalka yar ee aan idiin soo gudbinayay. channelka aad naga daawanaysaan waa Ismaaciil Caqiila. qofka idiin soo gudbinaya waa walaalkiin Ismaaciil Maxamed Cali. tan iyo barnaamijkan midkiisa xiga aynu ku kulmi doono waa saaxiibkiin, waa walaalkiin hadda Ismaaciil Maxamed Cali oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadiino nooli kulanta dambe.